جاليدا Soomaalida ee ku nool dalka Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay go'aankii maxkamadda sare ee Mareykanka ee go'aan ku gaartay in uu sharci yahay xayiraadda dhinaca socdaalka ee uu madaxweyne Trump soo saaray. amarkani ayaa saameynaya dadka ka imaanaya dalal sideed ah oo 6 kamid ah ay yihiin muslimiin kuwaasi oo Soomaaliya ku jirto. waxaana kamid ah dalalkaasi Chad, Iran, Libya, Kuuriyada Waqooyi, Syria, Venezuela iyo waliba Yemen. haddaba Jalaan Xuseen oo ah madaxa hay'adda CARE oo ah hay'ad u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ah ayaa sheegay in arintani ay tahay mid lagu beegsanayo muslimiinta. waanu aragno dhaqaaqaas inuu yahay mid ka hortagaya dastuurka Mareykanka, dhaawac u keenaya samcadda dadka Mareykanka, talabaadna runtii dib u keenay dadka muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaalida oo kamid ah wadamada laga mamnuucayo soo galitaanka dadka qaxootiga ah. maanta waxa ka soo qayb qaatay shirkan aanu qabanay aqoonyahan hay'ado kala duwan iyo dad xildhibaano ah oo iyaguna garab istaagay oo arinkan ka hadlay. waxaan rabnaa gaar ahaan dadka Soomaalida inaan u sharaxno qofkii safraya baxaya ama green card haysta waxaan la talin lahayn inuu la soo xiriiro xafiiska CARE iyo xafiisyada kale ee gaar ahaan sidii uu weydiiyo tala buuxda tala fiican sidii uu safarkiisa dib uga iman. qofka citizenka hadda uma aragna dib ay ku jirto laakiin dadka green card ka haysta dadka soo galaya ama dadka aan green card wali haysan ee iyaguna u baahan in ay lawyer la tashadaan gaar ahaan safarkooda dadkaasna waxaan jeclaan lahayn in hay'adaha la soo xiriiraan. shalay wixii ka dambeeyay dhaqaaqii dambe ugu dambeeyay madaxweyne sameeyay wuu hirgalmay. waxaan jeclaan lahayn dadku markaa inay ogaadaan in ay safarkays haday soo socdaan oo ay soo wadanka ku soo socdaan si dhaqso ah u soo gaaraan intii aanan maaragtay u barnaamijkan la hirgelin. laakiin muhiim waxa maanta muujinaynay dadka muslimiinta inay ka xun yihiin ka doodayaan dadka kale ee cadaanka iyo dadka la nool ee Mareykanka ku nool ee muslimiinta ahna iyaguna ka xun yihiin oo aan soo taagnaanano oo aan ka soo horjeedano oo aan mudaharaadano oo aan ognahay meeshan xuquuqda in loo dagaalamo weeyaan gaar ahaan in shacabka aan la taageersado sidii ay maxkamaddu u maahay ay shacabkuna xildhibaanadoodu waxay uga qabtaan dhaqaaqii madaxweynuhu sameeyay. Fartuun wali oo ah madaxa ururka Isroon ayaa bulshada Soomaaliyeed kula talisay in la midoobo isla markaana arintani loo wajaho isku duubni iyadoo si gaar ah ugu mahadcelisay hay'adda CARE. waxaan ognahay markii dib nagu dhacay inaan go'aan iska gaarno oo wax walba niraahno anaga sameeysanayno fadlan nambarada soo waca ma ha noqoto CARE ama ha noqoto legal aid ama ha noqoto Isroon ama ha noqoto organisationada maxalla informationka idin siinayo walaac iyo lulu jiraya oo dadkeena way naga maqan yihiin dadka inta joogana waxay isleeyeen badbaado ma jirto laakiin number 1 ilaahay ku xirma number 2na fadlan informationka adinkoo gacanta idinkugu jiro ama safar ama dadkiina wax fiican siiyo oo maxaa la yirida oo ku tirkuteenta iska dhaafe ee wax cad adinkoo gacanta ku haysatiin wada sheekaysta waa mahadsantiin. Suud Colaad oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka isla markaana u dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa sheegay in arintani ay si weyn u taaban doonto qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Itoobiya, Kenya iyo wadamo kale. Waan 5 sano ka hor Mareykanka imaaday 5 sano ka hor haduu President Obama uu dhihi lahaa hey suud iska joog qaxootiga wala Soomaaliya aadi lahaa because waa xanaaqi lahaa Soomaaliya in dhalinyaro haduu aadane shabaab uu joogto oo dhahayaan hey no nagu soo bir anaga u go Mareykanka. That's like a challenge oo madaxweynaha Mareykanka inta loo sheego uu baahan yahay indhaha kala furo dadka 70,000 dhalinyaro meesha ku jirto hadii aad albaabka ka xirtid argixisay aadayaan maxay noqonayaan hopeless less safe oo adduunka dhigaya muxuu Mareykanka ka dhigaya safe but less safe oo adduunka si dhigaya so dadka qaxootiga dhibaato dareemayaan ani dhalinyartii 5 years ago waxaan dareemay lahaa xanuunka dad dareemay Facebook ay gaal soo xiraan WhatsApp ay gaal soo xiraan WhatsApp inay dhahaan suud so ani marka CARE oo kale eventyaasha oo kale waxa u maanayo I want to be voice of those voiceless people dib badan inay dareemayaan ka kuumo Dadaab Uganda everywhere refugees ka especially Soomaalida waa dadku ugu badan oo dibkan marayaan. ugu dambeyntii Jalaan Xuseen oo ah madaxa hay'adda CARE ayaa bulshada ugu baaqay inay la soo xiriiraan hay'adaha ku shaqada leh arintani. waxa weeyaan dadka Soomaalida maanta ama citizen ha noqotid ama green card holder ha noqotid meel ka soo joogtid Mareykanka joogtid Mareykanku dastuurkiisu wuxuu u ogol yahay dad walba xuquuqdooda inay helaan
laakiin waxa lagu kala duwan yahay waxa weeyaan dadna xuquuqdooda way u dagaalamayaan dadna way ka hordaan marka waxa loo baahan yahay dhibaatooyinkan kale markay dhacaan maaha inaanu gees fiirino waa inaan ogaanaa waxaan haddaanu qabanno wax keeni kara waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeyaan qof kasta oo maanta Soomaaliya Mareykanka meel kasta ay joogaan ay degan yihiin hala xiriiraan hay'adaha wax qabanaya ee arinkan wax ku jira kow talabo xildhibaanadooda ay xaq u leeyihiin oo matala inay la hadlaan oo telefoonka ku wacaan oo xafiiskooda loogu tago oo ciyaalka la kaxeeyo oo lagu yiraahdo waa kuwan dadkii laga hadlayo waa kuwan reerihii waxaasaanu qabanaynaa bulshadaanu ka midnahay hana arkaan waxa laga yaabaa sheekada adigu u sheegtid in ay uga dhigaan sababtii ay iyagu uga hadli lahaayeen mawduuceeni laakiin hadii dadkeeni sheekooyinkoodii maqlin oo inagayna arkeen noomana doodi karaan namana dareemay inaanu damqanayno marka waxa laga baahan yahay dadkeenu inaanu mar walba oo naga lagu soo jeesado xaggan ka sii ordi lahayn waana soo oranaayo istaagnaa hay'adda keer 35 xafiis baan ku leenahay degmooyinka Mareykanka hay'ado badan oo muslimiin ah jiro runtii shaqadana qabanaya oo ku jira iyaguna marka qof walba boos buu leeyahay inaan hadda xaroono maaha ta kalena waxa hadda jira dad badan oo runtii na taageersan oo na raadinaya sidii iyagii ay noo garab istaagi lahayn waxna la qaban lahayn marka fursadaas inaynu ka faa'iideysano waa muhiim weyn maxamed muuse nuur deeq darajo Universal TV Minnesota